Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal. Kusoo dhawaada Noodaan Channel oo kaga barateen runtii casharo ku baxa afka Soomaaliga. Maanta waxaan qaadan doonaa casharkii labaad ee maadada video editing, gaar ahaan programka Camtasia Studio 9 ayaan maanta qaadan doonaa. Waa casharkii labaad. Waxaan ku qaadan doonaa hordhac guud oo interface-ka ah iyo runtii barnaamijyada ku cusub Camtasia 9. Marka casharkan ugu gudan galaynaa saad u jeediin waxaan joogaa ama aan hadda shaashada kaga muuqda face-ka ama wajiga guud Camtasia Studio 9. Runtii marka hore waxaan ka cawdaaranayaa dad badan ayaa yiri ma ii shaqeynayo oo waa ii soo kici waayay, waa culays camal computer iga jam gareynaya. Dadkaas waxaan u sheegi lahaa inay isticmaalaan 8ka, waayo kombiyuutarada ka yar RAM-ka 8ka oo ka yar yahay ama 4ka oo RAM-kooda oo 4 yahay ama 2 oo yahay, programkan waa culus yahay, ma isticmaali karaan. Runtii waa aad iyo culus yahay, laakiin waxay isticmaali karaan Camtasia 8ka, kaas isticmaali karaan, laakiin 9ka waa ku adkaanaya. Midda kale dad baa weydiiyay sidaad ku heshay full version-ka, ma gadatay miyaad si kale u heshay? Runtii ma gadan, laakiin waxaa jira runtii website-yo laga helo ayaa jira asoo full version ah. Insha Allah waa in sheegi doonaa haddii la yiraahdo. Cashar dama ku qaadan doonaa sida loo helo iyo qaabka runtii aad iskaga diiwaan gelin lahayd ama aad full version u heli lahayd. Okay, waxaan ka bilaabanaa qaybtan soo jeedin media. waa taqaanaan waxaa laga soo geliyaa muuqaaladii, codadkii iyo sawiradii. sidoo kale library-ga runtii waxyaabo badan ku jira, icons ku jira, intro ku jira, lower third ku jira, motion backgrounds ku jira, runtii music ku jira, outro ku jira. Hadda outro waxaan wada taabano, haddaan halab ka baraaweyno tusaale ahaan, waa markii muuqaalada aad dhameyso ama video-ga aad soo gabagabaydo meesha ugu dambeyda ayaa la dhigi karaa outro-han, muuqaalka ugu dambeeya. sidoo kale wuxuu leeyahay intro, leeyahay intro. haddaan ku tuso halab asan tusaale kaas siiyo, tusaale ahaan kan aan ku siinaa intro waa kaas aha. sidoo kale wuxuu leeyahay yiraahdo lower third oo runtii useful ah oo aan aad ugu helay. soo jeedin waa lower third. marka kan saas waaye waa library-gaas. annotation jira soo jeedin qaaban kala duwan ayaad wax ugu qori kartaa. sidoo kale fallaarahan jira iyagana basic ah. sidoo kale waxaa la yiraahdo shapes-ka jira oo shape-kan aad heli kartaa. sidoo kale waxaa la yiraahdo blur plus highlight jira, la yiraahdo qari ama calaamaday. sidoo kale san kala jira oo calaamadaha kala duwan ah. sidoo kale keyboard-kan waxyaabahan ka heli kartaa, control C, control A, waxyaabahaas aad ku qori kartaa, waxaad inta ka bedeli kartaa. marka aan gudubno qaybtan translation-ka, soo jeedin translation-ka waa isbedelada ama qaabka aad sawiradaada motion ugu sameyn lahayd ama u dhaqaaqi lahaayeen ama slide u sameyn lahaayeen. sidoo kale behavior leeyahay, sidoo kale animation leeyahay dhaqaaqa ah. halkan more ku jirta la yiraahdo concert effects waa muuska. hadda muuskiga fallaar waaye, laakiin waxa ka dhigi kartaa blue-taas midkan circle ka dhigi kartaa. sidoo waxa ku jira la yiraahdo audio effects, codka insha Allah cashir saddexaad aan ku qaadan doonaa. audio effects la yiraahdaa waa maqalka waayo. sidoo kale la yiraahdo captions jira asna muhiim ah oo kabkan ka soo muuqanaysa soo jeedin waa ka halkaas lagu qori karaa. soo jeedin halkan aan ku qorayaa assalaamu calaykum. marka muuqaalka captions-ka loo yeelo badanaa filmaanta ku aragtaan captions-ka. marka isna qaadan doonaa insha Allah. qaybtan waa timeline-kii, waa qaybta aad shaqada ku qaban lahayd oo aad muuqaalada ku editing gareyn lahayd, ku jari lahayd. qaybtan waa qaybta screen-ka ama qaybta aad ka fiirin lahayd waxa aad sameynayso, qaabka ay noqonayaan ama waxa ay isku bedelayaan ayaad halkan kala soconaysaa. marka waan filayaa inaad fahantay wajiga guud ee Camtasia. casharkan waa casharkii labaad. insha Allah cashar saddexaad waxaan ku qaadan doonaa codka iyo sida loo nadiifiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.